Asalaamu calaykum. Walaalayaal, anigoo ah magacayga Maxamed, meesha ugu jeedaan Maxamed Neero. Waxaan jeclahay inaan idinka soo gudbiyo language ku saabsan language-yada kamid ah ee hadda groupka picture-kan soo geliyay. Language-kan waxaa la yiraahdaa structured query language. waxaan ognahay meesha waxaan u jeednaa waxay tahay structured query language. Structured query language maxay tahay? Anigoo ah Maxamed Neero idin soo gudbinayo. waxaa ogaan horta SQL waxaan isticmaali doonaa SQL Server 2008 aan isticmaalaynaa. Okay, conceptiga marka waxay tahay SQL Server 2008 waxaa lahay ma aha database, bad waxa waaye database management system. farq weyn u dhaxeeyo database-ka iyo SQL Server-ka. Also waxa ognaa waxaa jiro waxa la yiraahdo RDBMS oo macnaheedu tahay ama loo soo gaabiyay relational database management system. Okay, waxa ognahay SQL Server haddana waxaan dhihi karnaa ku qeexi karnaa waa database management, waa database-ka sida loo manage gareeyo system-ka. waxaan u isticmaali karnaa inaan kala gareyno ama aan manage gareyno different database kala duwan. Also waxay manage gareyn kartaa many of database. waxaa ognaa marka types of database software-adana badanaa caalamka la isticmaalaa. waxaa qaarkooda ka maqan laakiin intaan kusoo koobay: Firebase, Panorama, SQL, RDBMS, MySQL, Access-ka waxaa waaye waa Microsoft Office-ka waaye. Access-ka waa loo isticmaali karaa. Short waxaa loo isticmaalaa meelaha yariiska Office-yada. Oracle-ka ujeednaa, FileMaker ujeednaa. Okay, waxaa kaloo ogaanaa marka intaa markaa marayna why do we need, maxaa u baahanahay RDBMS maxaa u dooranaa, sababta u dooranaa maxay tahay? RDBMS waxaa ognahay waxay manage gareysaa ama ay control gareysaa whenever markaa rabnaa inaan access gareyno ee database-ka. In case markaa rabno tusaalahan oo kale inaan data aan kala soo baxno, waxaan u maraynaa through, waxaa u dhex maray macnaha markaa rabtid data inaad kasoo qaadatid database-ka ama relational database management system-ka dhexdiisa. marka waxaa u dhex maray inaa you should go through your database management system. waxaa ognahay mar walba aad rabtid in markaas database macnaha muxuu ahay aad soo retrieve gareysid ama inaad kala soo baxid aad rabtid, mar walba waxaa qasab kuwa inaad dhex martid database-ka aad rabtid inaad isticmaashid. you have to inaad aadid base-kaaga. so waxaa ognahay RDBMS-ka wuxuu qaybsamaa 3 parts. waxaa la yidhaha security, integrating iyo performance and reliability. Okay, shantooda waxaan jeclahay insha allahu tacaala ayadoo la perform gareynayo in markaas cashada soo socdo, maadaama lecture-kan kan ugu horeeyo aan jeclahay inaan idin soo gudbiyo. waxaa ognaa meesha waxaan ugu jeednaa waxay tahay Microsoft SQL Server. Okay, wuxuu qaybsamaa 3 parts. Integration-ka hadda idin sheegay as definition-kiisa maadaama ay dhahay xilli kale idin sheegi doono insha allahu tacaala. laakiin integration-ka marka aad isticmaalaysa suppose aad rabtid inaad database aad ku access gareysid maxaa la ASP.NET, markaa rabtid oo kale tusaalahaan oo kale inaad ku access gareysid maxaa la sheeg web development markaa rabtid markaa sameynayso kale you have to inaad adeegsid database of integration. markaa rabtid oo kale office product-ga macnaha particular-ka inaad rabtid oo kale tusaalahaan oo kale inaad sameysid oo kale database-kaaga you have to waxaa isticmaalaysaa integration, aad isticmaalaysaa integration database. waxaa jira waxa la host solution-ka waxaa isticmaala waxyaaba marka aad rabtid inaa web designer marka website-ka aad sameynaysid. sidoo kale waxaa kaloo loo isticmaalaa wax la yiraahdo common reason-ka badanaa loo isticmaalo. waxaa kamid ah dadka waxaa isticmaala kambaniyada waxaa isticmaalo host gareeyo. suppose markaa rabto website inaad soo furatid inaad gadatid domain-kaas waxay tahay Google qayb kamid ah gadanay section kamid ah oo adiga website-ka oo ku access garoobay database-kaagana aad ku darsanayso waa gartaa maana. waxaan jeclahay in waxa kaloo jiro waxa la yiraahdo advance feature. allahu akbar.
advance featureska waxaa kamid oo kale reportingka markaa report aad sameynayso tusaalahaan ka database reportkaaga kale ayadoo la socoto markaas business intelligence and also aad dhigi karta data analyze those people waxaa adeegsan karaa fanta marena high profile tusaalahaan kambaniyada waaweyn ku kala karta marena and integration okay waxaa jirta waxaa ognahay waxaa la isticmaalaa adduunka qof wuxuu ku leeyahay database-kayga waxay ku samaysan tahay MySQL qof wuxuu ku dhahay Oracle qof wuxuu ku leeyahay SQL Server xogaha isku buuqnaa gartaa malena all of them qof walba oo isticmaalaa waxay ku kala duwan just syntax-ka ku kala duwan okay waxaa ognahay marka waxaa ogaataa anaga hadda insha Allah taala waxaan jeclahay meesha ugu jeednaa waxay tahay in inkastoo aniga dartaan aan meesha aan kusoo qoran laakiin waxaa jirta waxa la yiraahdo SQL-ka markaad rabtid serverka markii qofka la dhihi karo qofkan waxa waa eligible muxuu yahay waxaa eligible noqon doontaa inaad noqotid analyze macnaha serviceska integrationka waxaa la configuration managerka saaraan kale in noqdo macnaha waxaa kaloo adigina inaa muhiim inaa markaas conceptiga clear oo ka noqdo waxaa kamid ah wax la yiraahdo maxaa la sheeg SQL self management reporting macnaha maxaa reporting sidoo kale SQL Server provide books online all these stuff macnaha qofku waxa waaye SQL Server marka adiga aad ku noqotid perfect waxaa laga rabaa inta hadda soo sheegay qofka inuu conceptigeeda clear oo ka dhigo sidoo kale waxaa ognahay SQL-ka ama database-ka horta macnaheedu maxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa sida ognahay oo kale bangiyada oo kale waxaa loo isticmaalaa allahumma musta'an calaamaati sifoon online marketing oo kale loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa wax la yiraahdo waxaa kaloo loo isticmaalaa qofku markuu rabo oo booking gareysanayo online tickets oo kale admiga qofku markuu rabo inuu jaamacad xariiso oo kale online admission oo kale waxaa kamid oo kale tusaalahaan oo kale all waxaa la dhahaa macnaha muxuu ahay waxay kala duwan laakiin three parts-ka aan soo sheegay oo aad soo dhaho kale integrationka iyo host iyo maxaa la sheeg advanced feature so saddexdaas qaybood dadka ay isticmaali karaan saddexdaas waa saddexda ugu waaweyn insha Allah taala waxaan jeclahay haduu la yiraahdo in day by day ina markaas aan u kofar gareeyo inkastoo oo aan jeclahay insha Allah taala tartiib step by step so waxaan ka bilaabi doonaa hawka macnaha sidii adiga urti macnaha maxaa uu soo kala baxay sidii adiga u select gareeyna column tusaalahaan oo kale sidii markaas u relate gareeyna in any of atom from your database or your table so insha Allah taala intaan ku soo gabagabeynaa maanta duu leeyahay insha Allah taala waxaan jeclahay next time inaan meeshan kasii wado